maanta waxa ayaan ka hadli doonaa shil oo mar dhow dhacay oo diyaaradii shilkaas gashay aad u burburtay. Waxa ayaan ka hadli doonaa asbaabta shilkaas keentay iyo sida oo mustaqbalka looga taxadaro. Waa pilot shoote oo nii soo bandhigayo dhammaan wixii ku saabsan duulimaadka iyo diyaaradaha. isla sanadkan 2023 July 11 waxa ayaa dhacay shil oo uu ku dhacay diyaarad ay leedahay shirkadda Hale Airline. Diyaarad oo nooceedu yahay Embraer 120. Diyaaraddaas oo saarnay 4 crew, 2 duuliyo, 1 engineer iyo flight attendant ama cabin crew. diyaaraddaas waxay ka soo kacday Garowe General Maxamed Abshir International Airport waxayna ku soo socotay magaalada Muqdisho Aadan Cadde International Airport. diyaaraddaas waxa ay soo kacday saacadu markay ahayd 1:43 UTC. waxa ayaa saarnay diyaaraddaas 30 rukaab. diyaaraddu waxa ayaa loo fasaxay in ay ka kacdo eelaboorka Garowe oo loo fasaxay flight level 160. diyaaraddu markay Muqdisho ku soo dhawaatay waxa ayay ka dalbatay towerka ama controlka Muqdisho in ay soo caga dhigato. waxayna dalbatay jidcadaha oo runway 23 ama jidcade 23. towerkii ayaa dhahay diyaaraddu in ay isticmaasho runwayga ama jidcadaha 05 taasina waxaa sabab u ahayd in Juba 834 oo ka horeysay oo dalbatay in ay ku digato runwayga 23. taas oo kabtanka ka warcelin waayay oo amarka controlka qaatay. diyaaraddii marka ay soo caga dhiga rabtay Muqdisho oo soo diyaarisay waxa ayaa ku dhacay markay caga dhiganaysay in wind shear ku dhaco. wind shear-ka waxaa waaye sudden change of wind direction and speed ama si lama filaan ah oo hawada isku bedesho dhinacay u socoto iyo xawaaraha ay ku socoto. taas awgeeda kabtanka markuu caga dhiganayay hawadii ayaa aad hoos ugu riixday oo sababtay in markuu caga dhigtay lugta bidixda u baxdo oo diyaaradda controlka ka dhumo. aad ayuu iskugu dayay in oo lugta ama radarka midigta diyaaradda ku celiyo, laakiin awoodda diyaaradda oo controlka ka dhumay ayuu celin waayay. taas awgeeda jidcadaha ayay ka baxday diyaaradda oo dhinaca bidixda ayay u taraaraxday waxayna ku dhufsatay derbigii fensiga oo eelaboorka. waxay ahayd saacadu 3:25 UTC ama 6:25 local time. dhammaan dadka diyaaradda saarnaayeen way badbaadeen. marka sidaa hadda u sheegnay sababta oo sababtay shilkaas wuxuu ahay wind shear ama hawada isbedesho si lama filaan ah. marka sidee ayaan uga hortagi karnaa shilkaas ama shilalka noocaas ah? waxa ayaa la soo saaray investigation ama baaritaan iyo reportyo. waxyaasha oo ka mid ah oo la sameyn karo waa in oo lagu xiro ama eelaboorka lagu soo kordhiyo
wind shear detection system ama cimilahaas isbedelayo qalab oo sheegayo si oo qofka uga taxadiro ama uga fogaado dhibaatadaas oo imaan karto. ta labaad in kambaniyaasha tababarkooda oo duuliyaasha in yar ku daraan wacyigelinta oo wind shear-ka ama hawada sida lama filaanka isku bedelayso. In communication-ka duuliyaha iyo tower-ka ama control-ka la xoojiyo. sidoo kale dhaqaale waxaa soo gaarnay muuqaalkeena qaybtiisa ugu dambeeyay. haddaad ka heshay like, share, subscribe. ta labaad haddaad u baahan tahay talo ama wax ku saabsan duulimaadka iyo diyaaradaha waxa ayaad igala soo xiriiri kartaa. salaam.